Si xanuun badan kadib ugu dambeyn waxa ay ku guuleysteen jacaylkoodii. Lamaanahan da'da yar ee lagu magacaabo Axmed iyo Juwayriya ayaa ku aqal galay magaalada Burca. Haddaba daawadayaal waxa ay leeyihiin lamaanahan qiso aad u xanuun badan. Inta aanan idinla wadaagin qisadooda, haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreysay janaalkeena, fadlan subscribe saar si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino. Axmed iyo Juwayriya, kuwaas oo ah laba lamaane oo aad u da'yar kuna aqal galay magaalada Burco, ayaa waxa ay noqonayaan lamaane taariikhda galaya. Waxa ayna guurkooda ka hor lahaayeen qiso aad u xanuun badnayd oo ugu dambeyn guuleysatay. Labadan lamaane ayaa waxa ay soo mareen waddo dheer si ay ugu guuleystaan jacaylkoodii. Alaaba dadka Soomaaliyeed ayaan u baran in carruur sidaan u da'yar ay ku kalifmaan inay isguursadaan. Haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa inay labadan lamaane isguursadaan oo ay noqdaan iyagoo da'yar laba lamaane oo isqaba oo meel wada dega, nololna wada abuurta? Qisadan ayaa noqonaysa mid la yaab leh, waxaana inala wadaagay wiil ku sugan magaalada Burco, kaasoo ay famil wadaagaan wiilka aroosay gabadhan yarta ah. Waxa uuna nooga sheekayay qisadan iyadoo dhammaystiran. Waxa ayna u dhacaysaa sidan: Axmed iyo Juwayriya ayaa waxay ahaayeen lamaane markooda hore wadaag ku ahaa barashada Qur'aanka Kariimka ah, waxayna yaraantoodii hal meel ka wada baran jireen Qur'aanka, kaasoo isku dugsi wada ahaayeen. Axmed iyo Juwayriya oo aan markii hore xaafadahoodu kala fogeyn ayaa waxay ahaayeen lamaane si degdeg ah isku dabeecad fahmay. Markii hore dadku uma aysan fahmin jacayl, balse waxay u fahmayeen carruur isfahantay, kuwaas oo had iyo jeer jecel inay wada sheekaystaan, iskuna soo dhowaanaya, maadaama inta badan dadka Soomaaliyeed aan looga baran in dadka da'da yar ay jacayl iyo wax lamid ay sameeyaan, oo ay dadka Soomaaliyeed da'da 20 ama ka badan ay ku guursadaan. Hase yeeshee arrintan cajiibka ah ayaa bilowgeedii waxa ay kasoo bilaabatay dugsigii Qur'aanka, waxayna ahayd bilowgeedii arrin si qaas ah uga dhaxaysa labada lamaane, maadaama ay ahaayeen dad isku sir qarsada. Waxayna ahayd arrinta cajiibka ah maadaama labada lamaane bilowgii jacaylkooda uu kasoo bilowday heerkoodii koobaad ee dugsiga. Aan sii wadna qisadaane, waxaa isbedelay heerkoodii waxbarasheed ee dugsiga, waxayna ugu dambeyn u wareegsadeen iskuul. Lamaanahan ayaa waxayna wada galeen hal iskuul, waxaana arrinta la yaab kale ay tahay in labada lamaane ay isku galaas noqdeen oo ay hal mar wada bilaabeen iskuulka. Waana arrinta sii sahashay inay mar labaad labada lamaane isku sii dhowaadaan oo ay mar labaad waqti sii wada qaataan. Arrintan ayaana waxay sahashay in labada lamaane ay heer sare ka gaaraan jacaylkoodii. Waxa ayna fududaysay in mar walba ay wada xariiri karaan, is arki karaan, waqti wada qaadan karaan. Waxa uu inoo sheegay wiilkii qisadan nooga warramayay in lamaanahan ay mar walba is arki jireen. Waxa uuna sheegay wiilka Axmed oo kasoo jeeda reer danyar ahaa inuu had iyo jeer gabadhan gurigeeda imaan jiray, waxa uuna had iyo jeer la akhrisan jiray duruusta, inkastoo ay howlahooda jacayl la hoos ka wateen oo ay ahaayeen lamaane ku midaysan jacayl. Marka laga soo tago waxbarashada iyo duruusta ay ku midaysan yihiin oo ay markaa wada akhrisanayeen, lamaanahan ayaana si joogto ah u kulmi jiray. Waxa ayna ahaayeen dad inta badan dadka kale isaga dhow oo had iyo jeer is xiriiriya. Waxaa la sheegay in habeenkii fiidkii markay tahay ay isugu imaan jireen jardiin ku yaala xaafadooda hortooda si ay u sheekaystaan oo waqti u kala qaataan. Balse arrinta cajiibka ah ayaa waxa ay tahay markii ay lamaanahan damceen in ay isguursadaan ayaa waxa ay la kulmeen qiso aad u xanuun badnayd, taasoo marnaba aan dadka Soomaaliyeed aysan filayn. Waxa ayna noqotay mid dadku inta badan ay wada arkeen oo inay isguursadaan. Ayaa bilowgeedii iyo la yaabkeedii waxa uu kasoo bilowday faamilka gabadha, waxayna ahayd arrin inta badan aad loogala dagaalamay gabadha in ay guur ama wax u dhowba ay u dhawaato, maadaama aabaheed oo ahay nin wax bartay hantina haystay ku yiri gabadhayda uma ogolay inay guursato, waxaana rabaa inay heerkeeda waxbarasheed meel sare ka gaarto, kadib ayaad guur ama nolol aad samaysan doontaa. Hase yeeshee waxaa si weyn uga hor yimaaday gabadhan oo lagu magacaabo Juwayriya, waxayna arrintii aabaheed kaga hor timaaday go'aan adag, taasoo ay sheegtay inay marnaba aysan ka maarmin gacaliyaheeda Axmed, ayna doonaysa inay nolol wada dhistaan. Hase yeeshee arrintii ayaa aad u cakirantay, waxa ayna noqotay in gabadhii iskuulka aadimaya ay tiraahdo oo ay xaafadda iska joogto. Aabihii iyo faamilkii ayaa waxay noqotay arrintaasi mid ku cuslaatay, waxayna noqotay arrin la yaab leh. Hase yeeshee cadaadis badan oo la saaray Juwayriya ayaa waxa ugu dambeyn lagu celiyay iskuulkeedii, waxaana lagu yiri waxa aad sii wadataa waxbarashadaada, maadaama aabaheed marnaba ka biyo diiday inay arrintan ka joogsato. Waxa uuna ku yiri waa inaad waxbarashadaada sii wadataa, haddii aad jacayl u baahan tahay waad gaari doontaa, markii aad gaarto aniga ayaa kuu guuri doono oo aroos aad u qurux badan kuu dhigi doono. Gabadhan ayaa kasoo horjeestay sasabadii aabaheed, waxa ayna sheegtay inaysan marnaba ogolaan doonin oo ay lamaanahan dhigeeda inay nolol la samaysta mooyaane aysan si kale ku hakan doonin. Waxa ayna sheegtay inay aad u jeceshahay Axmed mar walba kasoo ag dhawaado. Hase yeeshee arrinta la yaab kaleed ayaa waxa ahayd markii ay arrinta faamilkeeda fahmeen, waxaa Axmed loo diiday inuu imaado guriga oo markii hore ay wax ku wada akhrisan jireen gabadhan uu jacaylka u qabay Juwayriya, waxayna arrintaasi culays
kale ku keentay Juwayriya maadaama caqabadu dhankeeda ay ka imaatay kadib markii ay waalidkeeda la wadaagtay inay doonayso inay guristo wiilkan hase yeeshee beddelkeedii meesha ay ka sugaysay in hamigeedii u hirgalo waxa ay la kulantay caqabado adag taasoo horseeday in ayada iyo wiilkaani aysan isguursan karin marnaba oo ay faamilkoodii kasoo horjeedaan arrintan hase yeeshee ugu dambeyn qisadan ayaa isku beddeshay mid murugo leh kadib markii gabadhii ay carabawday in haddii aan loo guurin wiilkan ay jeceshahay ay sun cabi doonto subxaanallah arrintan ayaa waxayna noqotay mid baqdin weyn gelisay faamilkii waxayna is yiraahdeen haddii gabadhiina aad arrintaa yartaa u diidaysaan ay nafteedii ku weydo waa arrin aad u xanuun badan aabihii oo ahaa nin aad u caqli badan fikir badan ahayna nin wax bartay oo dareemi karay marxaladda ay sababi karto qofka markii laga cuno qabatay ee wax uu doonayo ayaa gabadhiisii ugu dambeyn si hoose ula tashtay waxa uuna kula taliyay inay joojiso guurkan haddii ay awoodo balse waxa ay u caddaysay inay awoodin oo ay rabto inay wiilkan lamaana la noqoto oo ay meel wada degaan hase yeeshee aabihii ayaa ugu dambeyn go'aansaday inuu labada lamaane isku guuriyo waxa uuna u wacay wiilkii Axmed waxa uuna ka dalbaday in arrintan ay dib u dhigtaan oo markii ay weynaadaan isagu isu guurin doono hase yeeshee labada lamaane ayaa ka biyo diiday waxa uuna aabihii go'aansaday ugu dambeyn inuu labada lamaane isku guuriyo isaguna uu noloshooda kafaalo qaado hadda Axmed iyo Juwayriya waxa ay ku aqal galeen magaalada Burco waxaa la sheegay inay geeska degi doonaan gurigii Juwayriya iyagoo hal meel ka soo wada kici doona iskuulkoodii iyo waxbarashadoodiina hal meel ka soo wada aado lamaanahan oo da'dooda lagu kala sheegay 13 iyo sidoo kale 14 ayaa waxay noqonayaan kuwa taariikhda si weyn u gala waxaa la sheegay gabadhu inay ka yartaa wiilka hal sano oo qura waxa ayna jirtaa 13 halka isagu uu jiro 14 waxa uu ka weyn yahay hal sano oo qura arrintan ayaa waxay noqotay mid markeedii hore si weyn u qabsatay magaalada Burco waxa ayna dhammaan ardaydii iskuulka la dhiga jirtay ku noqotay arrin ama kaag ah sidoo kale macallimiinta iskuulka dhiganaysay ayaa ardadii kale uga digay in arrintan oo kale ku dhaqaaqaan lamaanahan ayaa arrintaas caqabad kala kulmay balse ugu dambeyn hadda waxa ay dib u wataan waxbarashadoodii waxaan leenahay jacaylku ma ahan wax la isku cadaadiyo hase yeeshee arrintan waxay noqonaysaa mid cajaa'ib ah ma xuma in la isjeclaado laakiin in da'dan yarta ah la isku guursado oo laba lamaana ku aqal galaan iyagoo da'dooda intaan la eg tahay ayaa waxa ay tahay wax cajaa'ib ah oo aan la soo koobi karin arrintan ayaana noqonayso mid la yaab leh isku soo wada duub jacaylku waa wax qalbiyada ku beerma ee maaha wax jismiga ku beerma qofku maalinta uu dhashay ayuu qalbigiisuna la dhashtaa qalbigu isma bedelo ee waxa isbedelo waa jismiga waxaan ku dhiirinayaa dadka Soomaaliyeed haddii ay arkaan lamaane sidan oo kale isku jecel inaysan jacaylkooda dagaal la gelin oo ay ku soo dhaweeyaan fikirkooda hadiiba ay faamilkoodii iyo waalidkoodii u soo bandhigayaan intii ay wax ka xun ku fakari lahaayeen oo ay qaladaad kale naftooda u horseedi lahaayeen haddaba daawade halkaad warbixintan kala socotid waa channelka Hardoor Media haddii ay tahay booqashadaada ugu horeeyay fadlan subscribe saar si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino personal dream. Everything you know is in your mind. Ooh.